kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobadii uga hadlay shirka ka soconaya Addis Ababa dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo walaac ka muujiyay biyo xireenka uu ka qayb galayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saameynta siyaasadeed ay yeelan karto Puntland oo ku dhawaaqday inay $1,000 uga qayb qaadan doonto biyo xireenka Itoobiya isla markaana ay ku darsanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hirgelisay nidaam ururka argagixisada aysan uga bixi karin guud ahaan dalka Puntland oo sheegtay in walaalkeeda koobaad uu yahay wadanka Itoobiya isla Puntland oo maanta ku dhawaaqday in nidaamka e-visa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hirgelisay aysan aqbalaynin isla markaana qof kasta oo Puntland soo gala ay ka doonayaan in uu samaysto wadanka Puntland gudihiisa uu ka qaato dalkugalka wadankaasi qodobada kale aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah saameynta beesha caalamka oo haatan gashay dastuurka Soomaaliya iyo arrimaha siyaasadeed ee la isla marlayahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hirgelisay nidaam adag oo argagixisada lagula dagaalamayo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena ee kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan aynu ku bilaabana daawadayaal Puntland ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay kasoo horjeedo nidaamka e-visa isla markaana aysan u hoggaansamaynin Puntland ayaa cadeysay inaysan u hoggaansamaynin dalku galka Soomaaliya ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dhigtay nidaamka online-ka iyadoo wasiirka warfaafinta maamulkaasi uu ku tilmaamay arrintan inay tahay isbaaraha hawada ay dhigatay dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo intaasi ku daray in lacagta dalku galka laga rabo qof kasta oo ka soo degaya garoomada Puntland dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qasab ka dhigtay in ruux kasta oo wata baasaboor shisheeye uu imaanaya gudaha dalka Soomaaliya uu soo goosto nidaamka e-visa tan oo dhibaato durba ku noqotay dadka ka degaya dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Somaliland kuwaas oo haatan cabasho ka muujinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya markana xaalad cakirnaan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka wajahaya wadamada Masar iyo Itoobiya kuwaas oo ku tartamaya dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Masar ay doonayso inaysan ka qayb galin furitaanka webiga Niil xarig jarka ay sameynayso Itoobiya maalinka bari ah halka Itoobiyana ay arintaasi aad ugu cadaadinayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa caawa wajahaya xaalad siyaasadeed oo adag kadib markii cadaadis diblomaasiyadeed ay soo weesartay dowladda Itoobiya taas oo la sheegayo in ay rabto inuu kala qayb galo biyo xireenka Geerid ay bari sameynayso sida ila siyaasadeed oo ku dhow fila Soomaaliya ay sheegeen Itoobiya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hordhigtay laba doorasho kow in uu ka soo muuqdo xafladda Geerid taasoo Itoobiya ay u aragto tijaabo lagu muujinayo taageerada dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay doonayso haddii xasan sheekh maxamuud uu tallaabadaasi qaado in ay waxyaabo badan u fuudayso labo in si cad uu ula safdo dowladda Masar isla markaana Itoobiya ay u aragto cadow madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana doonayso inay si cad ula dagaalanto maamul goboleedyada dalkan ay ku dirto go'aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haatan laga sugayaa waxaana la sheegayaa ilmo diblomaasiyiin ay cadeynayaan in xasan sheekh maxamuud durbaba uu go'aansaday in uu ka qayb galo xarig jarkaasi maadaama dowladda Itoobiya sharteedu aad u badan tahay oo ay maamul goboleedyada dalka ku soo diri karto dowladda federaalka ee Soomaaliya si uu isaga moosana tallaabadaasi uu qaado dowlad goboleedka Puntland oo aad ugu jajaban dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in $1,000 ay ku darsanayso biyo xireenka Itoobiya maamulka Puntland ayaa shalay waxa uu xaflad aad u wanaagsan ugu qabtay magaalada Garowe qunsulka wadankaasi waa qunsulka wadanka Itoobiya u jooga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Garowe waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin biyo xireenka ay furanayaan maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay in qadar lacageed ay si rasmi ah ugu darsadeen maalgelinta biyo xireenka Itoobiya kaas oo xalay lagu daray loo dhiibay qunsulka Itoobiya ee fadhiya magaalada Garowe wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa shaaciyay in Puntland ay maalgelinta ku darsatay $1,000 wasiirka ayaa intaasi waxa uu sheegay in biyo xireenku uu tusaale u yahay waxa Afrika qabsan karto waxa uu tilmaamay in mashruucan uu yahay wax weyn oo wax ka tari kara dhaqaalaha iyo horumarka Itoobiya guud ahaan qaaradda waxaan bogaadinayaa biyo xireenka Itoobiya dhisatay dhawaan la daahfuri doono waana arrin tusaale ah oo Afrika in ay wax qabsan karto lagu cadeynayo waxaan rajeynayaa in koronto qiimo jaban ay na soo gaarto waana mashruuc mudan in la taageero anigu waxaan ku darsaday $1,000 oo aan dowladda Itoobiya ku darsaday ayuu yiri Juxa oo arrintaasi ka hadlayay
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay hirgelisay nidaam casri ah oo ka hortagaya in xubnaha kooxda argagixisada ah iyo sidoo kale Daacish iyo Al-Shabaab isugu jira aanay ka bixi karin dalka. Nidaamkan ayaa sidoo kale ka hortagaya in xubnaha xagjirka ah ay u soo duulaan Soomaaliya sida uu agaasimaha guud ee hadda socdaalka Mustafa Sheekh Dhuxulow uu u sheegay wakaaladda Andalus ee dalka Turkiga. nidaamka oo lagu magacaabo BISCES ayaa si rasmi ah waxaa loo hirgeliyay 3 bilood ee la soo dhaafay waxaana taageerayay dowladda Mareykanka. 3 bilood ka hor ayaan hirgelinay nidaamka BISCES oo Mareykanku taageero. Nidaamkan ayaa xaqiijinaya in aan qofna dalka uga bixi karin ama uusan soo gali karinin iyadoo aysan jirin diiwaangelin rasmi ah. agaasimaha ayaa tilmaamay in heshiis ay la galeen Interpol si loo adeegsado liiska kormeerka caalamiga ah iyo hay'adaha sidoo kalena xiriir dhow la leh dalalka ay ka mid yihiin UK, Jarmalka, Switzerland, Norway iyo sidoo kale Finland. dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay ku dhawaaqday in walaalka koowaad ee ay leedahay xitaa Soomaaliya ugu horeeya uu yahay wadanka Itoobiya. Jenaraal Siciid Deere oo kamid ah saraakiisha ugu darajada sareysa Puntland oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu dabaaldegayay biyo-xireenka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in dowladda goboleedka Puntland oo magaalada Garowe ka dhisan in ay tahay walaalka koowaad ee Itoobiya oo aysan jirin wax ka xiga. Siciid Deere oo madasha ka hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in Itoobiya ay abaal ku leedahay Soomaaliya isla markaana markii uu ka dhacay burburkii ay garab istaagtay. wuxuu intaasi ku sii daray in dowladnimada Soomaaliya ay maanta la haysto ay saldhig u tahay Itoobiya laakiin ay jiraan dad cadaawad ka dhex dhigaya labada dal. walaalaha iyaga Itoobiya ayaa Ilaahay ka sokow waxa ay qabteen shaqo kasta oo muhiim u ah dalka. dadka sida qaldan u dhigaya oo Itoobiya cadowtinimada u abuuraya ha ogaadaan dowladda maanta la haysto iyaga ayaa saldhig u ahaa. sababtu waxa weeyaan awoodooda ayaan wax ku qabanay iyo tayada baan isku geynay taas ayaana keentay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagto. hadalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli Puntland oo khilaaf xooggan kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo markasta dowladda Soomaaliya wixii caqabad ku ah u arkaysa inay tahay ila muhiim ah isla markaana ay kula dagaalami karto dowladda federaalka ee Soomaaliya.